dadka soo barakacay xaradheere iyo deegaanada hoostaga oo gacanta ku hayaan ururka al-shabaab ayaa soo gaaray magaalada Dhuusmareeb waxaana deeq raashin gaarsiiyay qurbajoog ka soo jeeda deegaanadan kuwaas oo soo wakiishay Uba Xasan Ogaas iyo xildhibaan Cibaado Yuusuf الرحمن الرحيم maanta waxa farxad weyn noo ah inaan meeshan u joogno inaan qaybino ama gacantooda aan ku wareejino dadkii nagula soo dhiibay ama u baahnay sadaqadii aan noo soo idmateen gacanteennana ku soo wareejiseen in anagana maanta ku wareejinayno ayadoo madaxdeena iyo dhammaan dadkii mas'uuliyiinta dhan ay nala joogaan waxa marqaati ka tihiin maanta gudoonkii gobolka taagan gudoomiyaha degmada taagan ra'iisul wasaarihii galmudug taagan ummadii qaadanayso taagan inaan wareejinay waxa nagu aaminteen annagana aan ku wareejinay sidaas oo nooga dhacday mas'uuliyadda aan qaadnay saasan aaminsanahay gudoomiyaha degmada Dhuusmareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa madax xukuumadda galmudug ka codsaday in dadkan dhul la siiyo loona dhiso qoyskii waxa la siinayaa sida hortiina ka buuqata kiish bura haaf sonkora iyo haaf bariisa kartoon baasta iyo caag saliida waxaan leenahay cidii la siiyo Allah u barakeeyo cidii soo dhiibtana beddelyaal Allah ugu bedelan leenahay waa bilow fiican sida uu professorku u sheegay laakiin dadkii hooy ma lahan hantina ma lahan howlkan aan harsanayno dad baa soo deynsaday wali lacagtiisa kama bixinin waxa loogu talagalay xilliga wax la siinayo ama ay harsadaan oo meelaha waxa weeyaan harsi inay u soo aadaan suuli ma lahan guri ma lahan ganacsi ma jiro gacanta wax kale kuma hayaan madaxda naga sarreeyay ayaa joogta laakiin waxaan leenahay islaamnimadu ha shaqeydo ehelnimaduna ha shaqeydo ummadana waxa loo qabto madax xukuumadda nala jooga insha Allah waxa la rabaa dadkan in dhul la siiyo in loo dhiso in waxbarasho la siiyo in caafimaad maxaan ku raadaayo looga taxadaro walaalaha islaamka ah aqoon ahaanta u soo cararay mar hore iyo mar dambe waxaan leenahay soo dhawaada Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa ballan qaaday inay ku dadaali doonaan sidii dhul loogu heli lahaa barakacayaashan u badan haweenka iyo carruurta waxaan ku dadaali doonaa biidinillaahi kariim in dhul horta waasac la helo oo kaamka laftiisa laga waxeeyo oo dadka yacni soo barakaco waxa la wixii dheef ay helaan iyo waxa la wixii dadka muxsiniinta ay ugu deeqaan loogu qaybiyo loogu wasaco oo markaa kadib ayaka laftoodu ay ku dhimirsadaan ay isugu yimaadaan waan arkaynaa inay qorrax kulayla iyadoo jirta meel qorrax ay joogaan waxaan leenahay in yar si dulqaata haddii alla yiraahdo waa ka baxaynaa dhibkan waana isgarabsanaynaa garbihiina ayaan taaganahay dhanka kale waxa isna ku wareejiyay deeq loo soo wakiishay barakacayaashan Professor Axmed Salaad Kulmiye oo wakiil ka ahaa bulshada isku tagtay oo la baxday himilo taa oo ku nool wadanka dibadiisa xogaagan raashinka oo ay ku deeqeen hay'adda la yiraahdo himilo orag oo bulshada dhalinyaro oo samajacla oo deegaankan u dhalatay u badan ee ku nool dalka Holland ay soo gaarsiiyeen xogaagii ay soo dhiibeen ee ahaa lacagta $2470 waxay goysay oo aan ku gadnay ayaan rabnaa inaan wareejino oo aan siino qaxootiga halka toban oo ay ugu tala galeen Nafisa Xirsi Maxamuud Universal TV Dhuusmareeb